wiil uu dhalay amiirka Fujeeriya ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa isu dhiibay dowladda Qatar. Sida uu qoray wargeyska lagu magacaabo Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu qoray in wiil uu dhalay amiirka Imaaraadka Fujeeriya ee dalka Imaaraadka Carabta uu magangalyo siyaasadeed weydiistay dowladda Qatar. Codsigan ayaa la tilmaamay in wiilkan uu dhalay amiirka Fujeeriya uu sii mariyay safaaradda Qatar ay ku leedahay magaalada London. xogo la helay oo ku dhow amiirka Goostay oo magaciisa la yiraahdo Sheikh Rashid bin Hamid Al Sharqi iyo sidoo kale xogo diblomaasiyadeed oo wargeyska u waramay ayaa waxa ay sheegeen in amiirka Goostay da'diisu ay tahay 31 sano jir isla markaana uu u duulay magaalada madaxda dalka Qatar ee Doha 3 toddobaad ka hor. Lama oga sababta ku kaliftay amiirkan inuu talaabadan qaado, hase ahaatee 5 Juun sanadkii hore ayay dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain, Masar xiriirka diblomaasiyadeed iyo xiriirka ganacsiba u jareen dowladda Qatar. dalalkaas ayaa waxay ku eedeeyeen Qatar inay taageerto argagixisada iyo inay ka soo horjeedo xasilooni waarta oo ka hirgasha bariga dhexe. hase yeeshee dowladda Qatar ayaa eedeymahaasi ku tilmaantay kuwa been abuura, waxaana ganafka ay ku dhufatay shuruudo tiro badan oo ay u soo jeediyeen dowladahaasi.